ciidanka booliska magaalada Togwajaale ee xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa gacanta ku dhigay lacag foojariya oo ay sheegeen in ay soo qabteen iyadoo laga bedelayo suuqyada magaalada Togwajaale. taliyaha ciidanka booliska ee magaalada Togwajaale Dhamme Kaysa Suudi Caraale oo ka warbixiyay lacagtaasi been abuurka ah iyo sida ay u soo qabteen ayaa waxa uu yiri wixii aanu qabanay hawlgalkii aanu qaadnay xalay annagoo fulinayna amarkii taliyaha ciidanka hawlgalkaasi oo aanu ku soo qabanay lacagtan foojariga ah ee hortiina taala oo aanu ku soo qabanay ninka oo ah u dhashay dalka doonayeen inuu ganacsatada Soomaaliland kaga bedesho hantidooda. waxaad arkaysaa imika lacagta foojariga ah ee halka taala oo la doonayay in lagu khalkhal geliyo ganacsatada reer Soomaaliland guud ahaan waxaan u taaganahay mar walba in waxyaalaha nabadgelyada khalkhalinaya aba ha noqoto lacagta foojariga la doonayo muwaadiniinta in lagu khalkhal geliyo aba ha noqoto kuwa khamriga sida aba ha noqoto tariibayaasha in ay naga go'an tahay hadaan maamulkiinahay iyo laamihii dawladaba inaanu gacan bira ku qabanno. sidoo kale taliyaha saldhigga magaalada Togwajaale ayaa ka hadlay muqaadarada ay ka soo qabteen gudaha magaaladaasi Togwajaale. waxa kaloo socda ka ku xiga oo isna u dhashay dalka Itoobiya oo wada isaguna khamrigan waxa soo khamriya geesta kale ciidanka laanta socdaalka Soomaaliland ee magaalada Togwajaale ayaa dalkoodii dib ugu celiyay taariibayaal ka soo gudbay magaalada Togwajaale ee xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya. hawlgal balaaran baan qaadnay hawlgalka balaaran Wajaale laga ma qaadayne Soomaaliland oo dhan ba laga qaadayay annagoo fulinayna amarka taliyaha waxa socdaalka waxaan ku soo qabanay tiray Itoobiyana oo dhan dhowriyo konton awal halkii rag uu ka ahaa magafa imika dumarba magafa ka waxaan soo qabanay gabar magafa oo Itoobiyaanka wada taasna waa guulaha biliiska iyo immigration ku gaareen dadweynaha reer Wajaale waxaan ugu baaqayaa in ay ciidamada la shaqeeyaan amar guud baa soo baxay oo madaxweynuhu bixiyay oo laga saarayo ajaanibka wadanka haddayna iyagu nala qayb qaadan anagu waxba qabamayno dadweynaha Wajaale waa dad jecel nabadda dad amniga jecel Zakariya Nuux Ibraahim Royal TV magaalada Togwajaale.